waxaa si rasmi ah saaka looga daahfuray magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer diiwaangelinta kaadhka codbixinta doorashooyinka Somaliland oo ay si rasmi ah uga bilaami doonto 27 bishan deegaanada gobolka togdheer ceelaf weyn gar adag iyo caynaba munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta komishinka doorashooyinka qaranka asxaabta xisbiyada qaranka ururada arrimaha bulshada iyo daneeyayaasha doorashooyinka Somaliland soo dhaweynayna dhamaan gobolka togdheer oo maanta aynu u joogno xafladii daahfurka dib u furista diiwaangelinta codbixiyaasha gobolka togdheer iyo degmooyinka caynaba gar adag iyo ceelaf weyn xafladda daahfurkeedii ayaynu maanta halkan iskugu nimi diiwaangelintu waxay insha Allah inoo bilaabmi doontaa 27 bisha waxayna socon doontaa 4 casho oo qof kasta oo muwaadin ah insha Allah goobtii loogu talagalay loo geyn doono shaqaalihii iyo cidii u shaqayn lahayd iyo cidii nabadgelyada sugi lahayd iyo cidii hawshaas agab tiri lahayd iyo qalabkii lagu qaban lahaaba dhammaan komishanku way diyaariyeen insha Allah waxaan ku rajaynahay 4 casho qof kasta oo muwaadini inuu ka faa'iideysto muhiimadda waxaynu siinaynaa ama ujeedada dhan ee waxa soo hawlo loo galay lacagta inta laga bixinayo shaqaalaha inta lagu hawlgeliyaan waa in la siiyo muwaadiniinta intii aan isdiiwaan gelin inay iyaguna chance helaan dadkaas oo ah dadkaan hore isu diiwaan gelin markii hore iyo dadkii daahaan ka yaraa ee aan qaan gaarin ayaa muhiim ah waxa kale oo iyadana muhiim ah dadkii hore inta marka hore ku noqdeen 2 jeer iyo 3 jeer ama ka badan oo kaarkooda ka guftay iyagana waxa loo siinayaa chance inay ka qayb qaataan waxaynu sheegaynaa waxa laga yaabaa inay dadku ku mashquulaan ama is yiraahdaan 2016 dadkii isdiiwaan geliyay iyagoo aan duplicate ahayn haddana inay is yiraahdaan maadaama diiwaangelinta la sameeyo ka qayb qaata marka qof kasta oo kaarkiisii hore haysta oo aan ahayn dadkii kaarku ka gubtay ma gelayaan imanka haddii ay galaan wuu ka gubanayaa wuxuu noqonayaa qof duplicate waxaa jira iyaguna dad markii hore isdiiwaan geliyay aan duplicate ahayn oo aan kaarkooda ka gubanin laakiin aan qaadanin kaarkooda si doonaan ma noqdaan dadka waxa loo qaybinayaa muddada kaar qaybinta ayaa loo soo raacanayaa qof kasta oo aan kaarkiisa hore u qaadan xafiiska komishinka doorashooyinka qaranku yaala waa la soo raacinayaa kaar qaybinta ayuu helayaa qofkaas goobtii iska diiwaan geliyay qofku uu garanayaa wuu imanaya uu ka qaadanaya waxa kale oo soo raaci doona iyaguna dadkii kaarku ka lumay ama qofka doonaya inuu iska bedelo degmadii markii hore iska diiwaan geliyay degmooyinkaasi waxa weeyaan 23 degmo doorasho ee komishinka u diiwaan gashan ayuu qofku ka bedelan karaa tusaale burco marka joogto oo weynaad bedelan karta laakiin caasimadda burco dhexdeeda ama degmooyinka burco kuma jirto marka waqti buu komishinku u cayimi doona hadii la ka dhigo marka diiwaangelinta hore dhamaata 4 maalmood ayaa la sheegi doonaa degmooyinka oo dhan way ka bilaabmi doontaa si siman way uga bilaabmaysaa waqtina way ka wada bilaabmaysaa oo sida nimka loo kala dambaysiinayo laakiin degmooyinka oo dhan baa la dhigayaa hal mar bay ka dhacaysaa waxaan runtii mahad ballaaran u jeedinayaa komishinka doorashooyinka qaranka aanu la shaqaynaynay muddadii hadda ay socotay diiwaangelintu markhaatina aanu ka ahayn hawl aad u baaxad weyn aad u culus aad u dhib badan inay ku dhacaysay ayna u dhabar adeygeen si fiican baa loo soo dhaweeyay gobolka togdheerna sidaas leeg baan ka filaynaa haddii ilaahay yiraahdo in ammaankana la ilaaliyo komishinkana lala shaqeeyo la isna abaabulo la isdiiwaan geliyo fariinteenu waa intaas aad iyo aad bay muhiim u tahay inaan la carqaladaynin goobaha codbixinta laga bixinayo illa la shaqeeyo amniga oo iyadana aan la rabshin goobaha waa maalinta loogu talagalay dadweynaha iyo shacabka in gacantooda mas'uuliyadii lagu soo celiyo maanta inaga go'aan kale hadaynu nahay bulshadii shacabkii reer Somaliland inaga laynaga doonayaa cidii aynu ku hadlayn lahayn masiirka dalka ka dambeeya in doorashooyinka hawlaha doorashooyinka lagu qabto xarumaha jaamacadaha waaweyn ma aha oo kaliya in halka laga helo arday u diyaarsan ama aqoon diyaarsan leh ama si fudud loo tababari karo waxa kale oo kamid ah inay tahay meel fursad dhalinyarada lagu abuuri karo shucuur wadaniyadeed oo ay geli karto dareen lahaansho midowga Yurub wuxuu ku faraxsan yahay shaqada quruxda badan ee guddida doorashooyinka qabteen waana ku hambalyeynaa
shaqadii wanaagsaneed ay soo qabteen wejigii koowaad ee diiwaangelinta. Annagu haddaanu nahay shirkadda Telesom waxaanu ka haynay oo aanu ka qaadanay sidii mas'uuliyadaha cid waliba u qaybsatay mas'uuliyad lafdhabar ah oo guud ahaan laba arrimood baanu ka shaqaynaynaa intan xilligan diiwaangelintu joogto. Arrinta koowaad oo ah wacyigelinta in la wacyigeliyo dhammaan dadka iyo qaybaha kale ee bulshada isla markaana la faro in fariinta diiwaangelinta codbixiyaal ee qaadashada kaadhka codbixinta ay si fiican u gaadho isla markaana la saaro madmadowga ku jira. Waxaan jecelahay inaan xuso in diiwaangelintani ka duwan tahay diiwaangelinihii hore waayo waxaa jira shuruudo saameynaya isla markaana gubaya qofka kaadhka qaadanaya. taas si aan uga hortagno komishanka waxaan kala shaqeynay soo saarista fariimooyin wacyigelineed oo iyagu hogaaminayeen isla markaana anagu kala shaqeynay iyo sidoo kale in wacyigelino kala balaaran loo kala digro gobolka Togdheer iyo degmooyin qarannimadana weyn wada leenahay guushana weyn wada leenahay laakiin waa la tartamaya inteena soo hadhay waxa loo baahan yahay inaynu diyaar garowno oo kaadhka qaadano waxaan u diyaar garownay haddaan nahay uqaashayadii haddaan nahay dhallinyaradayadii haddaan nahay haweenkayagii iyo haddaan nahay maamulkiiba si aanu si nabadgelyo ah si hufan si fiican aanu ulama shaqayn lahayn komishinka una qaadan lahayn diiwaangelinta annaguna waxaanu ballan qaadaynaa inaanu la shaqayno muddada komishinkaasu shaqaynayo. saddexdii gobol galbeedku waa soo dhammaadeen diiwaangelintiina alxamdulilah waa ka soo qabsantay waxay odhan jireen deera ma hirdiin alxamdulilah si fiican bay u soo dhammaatay xaggaa galbeedka marka la joogay la yidho barigaa hawl laga qabanayaa dadku waxay yidhahaan maxaa soo yeedhi doona reer bariga maanta waxaanu leenahay xantii bedela xasiloonnada ha la ilaaliyo si wanaagsan diiwaangelinta ha loo galo waxaanu leenahay dadka isdiiwaangelintu xaq weeye dastuuriya oo qof walba laga rabo oo xaq loogu leeyahay sidaa darteed dadka in loo geliyo weeye xaq lagu leeyahay oo qofka ku xigaa ku leeyahay qaranku ku leeyahay oo gobolku ku leeyahay wey reer Togdheer iyo saddexda degmo ee la socda waa inoo 27ka iyo haddii ilaahay ka dhigo goobihii diiwaangelinta oo dhammaantood albaabadu u furan yihiin sugayana inay idin diiwaangeliyaan. Cabdiqani Baafo, Star TV, magaalada Burco.